warshashka saxaaqa wadanka ciyaarta ka daaya wadanka Soomaaliland la yiraahdo iyo jamhuuriyaddii wanaagsaneed aynu wada lahayn barakaysnay warshashka saxaaqa inaga ku ciyaarayna ciyaarta aynu ka dayno gaar ahaan reer daahiriya aadan madoobiye samatar barro ciyaarta aynu ka dayno Solomadow waxba kulmiye kama inaan xukuumaddiisna waxba kama inaan xataa laan waxba kabani shacabka la idin garaaco leeyado Solomadow waa geesiyaal dagaalka iyaga ka hormuuda mid kala wadanka dagaalanta wadanka iyagu ma dagaalama habar jaclada meesha joogtay ee kale ee gurmadku ugu timina waxaan leeyahay waar maadareeya uma aragnay inaan noo turaysaan waxaan u maleynayaa turaaluhu inuu ku wanaagsanaa in waliba inuu magaaladiisa kaga noqdo waxaad wada wadanka Soomaaliland in beesha isaaq wadanka horta inay ku ciyaaraysaad moodaa marka koobaad marka labaad waxaad moodaa in beesha isaaq iyana ay doonayso inay isgumaysato afartii sanadood u dambeysay umada kale ay gumaysato umadii kale qaar iskaga batagaba imaka iyadaba soo hadho iyadaba doonaysa inay ismuqooniso reer shaqo saxaaq waxaan leeyahay war reer shaqo saxaaqa wadanka ciyaarta ka daaya wadanka Soomaaliland la yiraahdo iyo jamhuuriyaddii wanaagsaneed aynu wada lahayn barakaysnayd reer shaqo saxaaqa inaga ku ciyaarayna ciyaarta aynu ka dayno gaar ahaan habar jecloy ciyaarta aynu ka dayno gaar ahaan Maxamed Bakar ciyaarta aynu ka dayno gaar ahaan reer daahiriya aadan madoobiye samatar barro ciyaarta aynu ka dayno hataawle war wadanka ninkii loo jeedo Maxamed Xaaji Ibrahim cigaal ayaa waxa la barbariyaa kamid ah isagoo wasiirada Islaamka wuxuu qaawanaan baa lagu wada hadlayaa qaawanaan baa lagu wada hadlayaa maanta waxaan idinku nidhi horta qaawanaantii Maxamed Xaaji Ibrahim sheegay Ilaahay oo naxariistay baa lagu wada hadlayaa waayo waa la diiday oo reer shaqo saxaaq iyo habar jecel waa diideen in la isqalciyo qoys inuu qanciyo ayay ku wacnayd oo reer inuu qanciyo ayay ku wacnayd oo qof inuu qanciyo ayay ku wanaagsan laakiin qof waliba hadii uu tiisa ku dhaqaaqay oo uu waliba tiisa haysta noqday dee qaawanaanta in lagu wada hadlay la taasaa keentay dee hal dhageysto nin waliba fikirkiisa iyo maxay hayday dee waxa uu ka hadlo ama uu qaldanaada ama uu saxsanaada waxa weeyaan anigu horta waxaan leeyahay maanta war hadii nusqal ankar weynay oo inaynu sunnaadno wada hadallaynu weynay aynu saxaafada inaynu gaargaar u kala baxno oo gaargaar u kala hadallo aynu iska dayno taasina ay dhici weyday oo reeradan inta hadar TV-yada ka buuqayaan yar baan uga tusaaleyn laakiin siinaya waa beeshi la Solomadow inagu habar jeclay iyo habar wal xilliga ay balaaso wax ku galeen ee xisbigii kulmiye lagu sheerayay kuma baynaa jirno wanagu u dubahay wati garaad ka bacdi la inagu yaadhay hadda dawx ilowdana anagu xamaanaan lawni waxba kulmiye kama inaan ahayn xukuumaddiisna waxba kama inaan xataa laan waxba kabani umad lagu shaqaystayna anigu waxaynu ogeyn xisbiga kulmiye maalintu wadanka qabsaday wuxuu inagu bilaabay dagaal leeyahay ka shaale barkadu inoo soo dhibay mashruuca saddex nin baa loo soo dhibay saddex qoys baa loo soo dhibay reer walba waxa la war beeshaayeen yaad barkad qodan karayaan u dhibnaa reer hebel saddexdii reer baa loo dhibay ka shaale ka qodeen ma garanaysa maalinta dhammaystiran baa la yiri war qoladina loo baahan maxaa waxa barkadaha la qoda iyaga wax gaar ah laga soo bushkariyay gig wala isku dhacay halka waa dagaal ka dhacay wixii ka dhacay Ilaahay baa ogaa habar jecladan moodaysa qoladan Solomadow ama qoladeeda Solomadow in dagaalku uu ku bilowday hadeer toole iyo dayarmadii aan uga yeernay isagoo laascano joogaan taan qurud imaamadaha saw taxnay aan niri habartii heblaayeen aan ugu mahmaanay adeer way ka horeysay baashu way ka horeysay annaga xilligii dawladii Siilaanyo ayay baashu ugu bilaabantay xataa laan way nagu socotaa ina jaamacad dhigtaano ma badbaadin inaan maxay hayday iskuul dhigtaano ma badbaadin inaan meherad haystaano ma badbaadin mid waliba halkaas u qorisitaayo shaqadiina ka tagay waxbarashadina ka tagay neefno ma badbaadin oo lacag nooma badbaadin oo qurba joog iyo qolqol joogba waan dhig baxna waxa weeyaan habar jecel horta inay isgumaysatay doonaysa كل ده غير بدن وابل الجميستو هذا ارتلك بقى على الأرض المرأة بيش السلمدو وحاولي وعلى العلية
سلمده وي sidana ku socotaan sidii saxda ahayd ma in shacabka la idin garaaco leeyahay salamadu waa geesiyaal dagaalka iyaga ka hormuuda mid kala wadanka dagaalanta wadanka iyagu ma dagaalama iyaga xoreynaya ku socda hooya baashan qorigan hooya xabadan rida gala war waxaas wax suurta gala maaha habar jaclada meesha joogtay ee kale ee gurmadku ugu timina waxaan leenahay waa maad reeyaan uma aragnayna noo tuuraysaan waxaan u maleynayaa turaaluhu inuu ku wanaagsanaa nin waliba inuu magaaladiisa ka noqdo ayaan u maleynayaa anigu turaaluhu inuu sidaa ku wacnaa waayo waxaan ogahay anigu 4 bilood ama 5 bilood baan joogay meesha xabadu ka taagantay qoysas kamida qoysaska habar jeclaa meesha jooga ayaa doonaya in dagaal u dhaco oo la isku dhaco oo iska socoto baasho waliga dagaal la socoto oo waxba soo afkooyin waxba aanay soo afkooyin waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynaa oo aan kaga baxaya habar jeclaa deegaanka joogta qurulugud warinta inta deegaanka ah ilaa balacana ilaa baashi ilaa coodanle ilaa qurulugud ay u tashanayso baljiida intiina kale iska noqdeen maadariya intii la qarameeyay mooyaane intii ni kale de gurihiina iska noqda oo magaalada iyo magaalooyinka iyo deegaanada rabashka ilmaada reeyaan ka daaya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.